waxa caawa si rasmi ah garoonkan oo Alxamdulilah Stadium ee degmada Celifin lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda u socday 9 kooxood ee heerka koowaad ah kuwaas oo bishii Ramadaan uga socday gudaha degmada Celifin ee gobolka Sanaag tartan kubaddeed waxaana soo qabanqaabiyay tartankan maamulka degmada Celifin oo horkacaya maayirka degmadaasi Maxamed Aadan Digaale ayaa ka qayb galay soo xidhida xafladani waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay maamulaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee degmada Celifin Maxamed Sahal Cali xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Celifin iyo mas'uuliyiin kale waxayna yiraahdeen waxa garoonka Alxamdulilah Stadium inuu soo gabagaboobay koobkii bisha Ramadaan inoo soconayay koobkaas oo soconayay 9 kooxood oo ah kooxaha heerka koobaad ee degmada waxa caawa finalkiisu ugu soo baxay kala qaaday labada kooxood ee ku kala ciyaarayay magaca Sanaag Farmasi iyo kooxda ku ciyaarisay magaca degmada Darweyne waxa guusha ay raacday kooxda degmada Darweyne waxayna kaalinta labaad gashay kooxda Sanaag ku ciyaarisay waxaan caawa halkan ku guddoonsiinaa labada kooxood kooxda koobka qaaday abaalmarinta iyo jaaysooyinkii ay heleen kooxda kalena kaalinta labaad baa la guddoonsiinayaa waxa ila jirta wareeg labaad oo garoonka weyn ee degmada inoogu soconaysay bishii Ramadaan kaasna waxa ku guuleysatay isna waxa ku tartamayay 5 kooxood oo kooxaha Siribida waxa ku guuleysatay kooxda ku ciyaarta Alxamdulilah baayina ku guuleysatay oo 5 kooxood iyana kaga guuleysatay labada kooxood ee labada koob kala qaaday eed iyo biida labadaba waxaan siinaa waxyaabaha ay qaadeen dhalinyaradan waxaan ku baraarujinaynaa koobkan koob la mid ah inay dhigto oo sida aad loogu tartamo ciyaartooyaduna inoogu yimaadaan gobolka Ceergaabo degmada Ceergaabo iyo degmada Garadagba isku dhaxgalkii iyo wanaagiina saas ku sii soconaya insha Allah taala aad iyo aad baan u mahadinayaa maayirka iyo ku-xigeenka iyo xildhibaanada iyo booliska jooga gurmadka iyo taliyaha saldhigga degmada Celifin aad waxaan u hambalyeeynaa maamulka degmada Celifin uu horeeyo maayirku iyo maayir ku-xigeenku oo kaalin lixaad ka qaatay sadexgalka dhalinyarada degmada Celifin iyo horumarka degmada aad iyo aad waxtar weyn uga qabtay koobkii Ramadaanta ee isugu ku tartamayay 9 kooxood waxa ka soo haray 2 kooxood oo finalkiisa ku soo baxay labadii kooxoodna waxa ku guuleystay kooxda degmada Darweyne iyo kooxdii iyana laga badiyay Sanaag Farmasi wuxuu waxa weeye waa kubad waa barcad iyo barmadow markii hore sheego waxa ay kulliba labadiinimo wada guuleysanaysaa mid baa guuleysanay laakiin waxay noqonaysaa dhiirigelin bishii Ramadaan garoonkan taagnayn 9 tiim baa ciyaarayay aakhirkii waxa isugu soo haray Sanaag Farmasi iyo Darweyne caawa waxaanu taaganahay xafladii koobka oo ay qaaday degmada Darweyne aad baan u hambalyeeynaa ciyaar wanaag muujiyeen sida xiisaha leh kalgacal kale isdhexgal kale aad iyo aad baan uga hambalyeeynaa maamulka degmada hoggaan wanaagsan baa noqoteen aad iyo aad baan u salaamayaa oo ugu mahad celinayaa qolada la yiraahdo ciyaartooyga sharaf weyn ah farxad ah inay ku guuleysatay koobkii Ramadaanta ka socday degmada Celifin garoonka Alxamdulilah Stadium kooxdii ku matalaysay dawladda hoose ee degmada Darweyne aad iyo aad bay farxadii tahay sidoo kale kooxdii ku guuleysatay koobkani oo ku ciyaaraysay degmada Darweyne iyo kooxdii laga guuleystay oo iyana ku ciyaaraysay Sanaag Farmasi ayaa isugu hambaliyay koobkani maxamuud aan finalka isugu nibi aad iyo aad baan runtii u hambalyeeynaa kubaddu sideedaba waxa weeye waad guuleysanaysaa baa laga guuleysanaya waxaan aad ugu mahad celinayaa tiimka ku ciyaarayay Sanaag Farmasi oo aad naga soo horjeeday soo bandhigay kubad qurux badan soo bandhigay nasiibku laakiin say uu anaga naga siiyay guushaas wax Ilaahay loogu mahadiyo gabagabadina waxa halkaas hadalka soo afmeeray maayirka degmada Celifin Maxamed Aadan Digaale iyo waliba maayir ku-xigeenka degmadaasi Maxamed Jaamac Liibaan Hindi hadii uu nabadgelyo ku dhamaaday intuu nabadgelyo ku bilowday nabadgelyo caawa ku soo gabagaboobay oo koobkii lagu qaaday Darweyne wax naga qaado degmo ahaan Celifin waxaanu anagu intaba ka furyeelaynaa maadaama ay nabadgelyo ku dhamaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan u mahad celinaynaa waxaanu leenahay han la ka bartaa waxaanu anagu martiga qagelinaa gobolka degmada meesha la yiraahdo Ceergaabo oo halkan ku ciyaarta waxaanu sidoo kale halkan u soo ciyaartay degmada la yiraahdo Garadag labadaba waxa keenay waxa weeye aan ugu mahad celinaynaa waa garoonka waxaan leenahay mulkiilaha dhisay ee ka dhisay garoonkan degmada Celifin aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaanu aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ka maamul ahaan sida dhalinyartu isu dhex gashay iyo sida ay ciyaar wanaag u soo bandhigeen iyo sida ay isu dhex galeen iyo sida aan maanta heer Celifin
ay halkan uga tegayaan 12 habeenimo iyo 1 habeenimo iyagoo gacmahaas haysta suuqa ilaa garoonka inta u dhaxaysana dhalinyartu iyadoo sheekaysanaysa ay gacmahaas haystaan ay u lugeynayaan runtii isuguna faraxsan yihiin alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan leenahay Cirif Weyn shuushkii waa laga qaaday ilaahay mahadii maanta waa taa dhalinyartii wada dheelaysa runtii ahmiyadda ugu weyn ee aanu ka lahayn koobkana wuxuu ahaa sidii dhalinyartu ay isu dhexgeli lahaayeen ee aanay u kala shaki lahayn una kala sasi lahayn waa maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Cirif Weyn